Soomaalidu tiraa Bismillahir Rahmanir Rahim horta marka hore waa salaamayaa mudanayaasha shirguddoonka shaqaalaha golaha iyo saxaafadda bulshada iyo muwaadiniinta kale reer Soomaaliland joogta marka hore doodu waxay ku socotay qiimeynta marxaladaha dalka ama xaaladda dalku marayo way farabadnayd oo wajiyo badan bay lahayd waxyar waan ka taaban doonaa wixii soo kordhayna ee intii doodu socotay ka dhex dhalatay ama go'aamadii la gaadhayna laba saddex kelmadood ayaan ka odhan doonaa inkastoo ay ku habboon tahay inaan laga hordhicine la sugo oo la dhowro dhowr cisho ugu horreyn waxay la tahay maanta Somaliland markaynu dhinacyo badan ka eegno ama arrimaha dibadda iyo beesha caalamka iyo xidhiidhada dawladaha shisheeye aynu la leenahay intaba in la taagan yahay ama la joogo xilliyadii ama xilligii laga wada hadli lahaa ee la isaga iman lahaa in la qiimeeyo marxaladda iyo wada hadallada iyo qadiyadda Somaliland ka midho-dhalinteeda waxaan u baahannahay golo ahaan inaan dib ugu noqono oo wax iska weydiino muddadii wada hadalka Somaliland iyo Soomaaliya golayaashu ay fasaxeen ama ay ogolaadeen wixii soo kordhay ee faa'iido ah ee aynu gaadhnay halkay marayso maanta in la qiimeeyo oo golayaashu dib u qiimeeyaan waliba golaha wakiiladu oo aynu rogrogno in badan isla markaana aynu ku soo kordhino waxyaabaha aynu u aragno inay tahay qaabkii loo hagi lahaa ama looga midho dhalin lahaa siyaasadda arrimaha dibadda Somaliland khaasatan wada hadallada dalka Soomaaliya oo aad isu bedelay imika marxaladihiisu oo aynu la soconno iyaduba inay wax badan iska bedeleen mandaqada geeska Afrika iyo xidhiidhada ka dhaxeeya dawladaha ku yaala bariga Afrika saameynteedana ay nagu yeelanaysaa marka waxaan u baahannahay sanadkii 2012 bay ahayd markii aynu fasaxnay wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya inkastoo qabo wada hadalladu inay Somaliland dan u yihiin oo dan ugu jirto wada hadalka Somaliland iyo Soomaaliya Somaliland dan ugu jirto haddana waxaan aaminsanahay inaynu qiimeyno oo aynu eegno marxaladii kala duwanaa ee ay soo mareen wada hadalladaas waxaynu ka warhaynaa xukuumadii ka horreeyay xukuumadda farmaajo iyo xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi inay heshiisiyo soo wada gaadheen heshiisyadaasi haddana waxay u eegyiin kuwa aan fulin oo isbedelo badan ku yimaadeen waxaan u arkaa inta badan inay ka fuli waayeen ama ay 100% ka fuli waayeen dhinaca Soomaaliya oo ay ka baxeen wada hadalkii go'aamadii lagu gaadhay iyo heshiisyadii la gaadhay intaba taasoo dhaawacaysa wada hadalkii isla markaana waxa soo baxay oo imika aynu ka warhaynaa muddada ugu dambeysay ee 2 sanadood ahayd ama 3 sano ugu dambeeyay ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha xilka uu Soomaaliya federaalka gacanta ku hayay in isbedelo iyo dagaallo hor leh oo adag uu ku soo qaaday Somaliland isagoo dhinacyo badan dagaalada kaga soo qaaday haday tahay dhinaca maxaa la yiraahdaa deeqaha dibadda haday tahay dhinaca xiriirka beesha caalamka iyo Somaliland ka dhaxeeya haday tahay dhinaca wada hadalka oo uu magacaabay guddi aanay suurtagal ahayn inay Somaliland aqbasho oo wada hadalladii si aan baqaad karaya waxa soo dhan waxay u eegayeen caqabado iyo turunturooyin isdaba yaala oo ay ugu tala gashay xukuumadda Soomaaliya ee federaalka ah
inaanay dhaqaaqin wada hadalladii isla markaana ay ku hagardaamayso xidhiidhkii xukuumadii ka horreeyey iyo xukuumaddan hadda joogtay Somaliland ay wada lahaayeen sidaa daraaddeed innaguna waxaa u baahannahay siyaasadda inaynu qiimayno golo ahaan oo aynu wax badan daraasadayno go'aanana aynu ka soo saarno aynu ku hagayno siyaasadda arrimaha dibadda ee Somaliland iyo siyaasadda mandaqada bariga Afrika ka socota intaba oo aynu wadamada bariga Afrika xidhiidho iyo dhambaalo ama maxaa la yidhaahdaa go'aamo gole aynu ugu gudbinayno sidii looga bixi lahaa marxaladdan qallafsan ee soo wajahday xidhiidhkii wada hadal ee labada dhinac maanta dunidu de waxa weeyaan waynu garanaynaa halkay u socoto itijaaha ay haysatana waynu aragnaa waxaa laynooga baahanyay inaynu wacyiga la jaan qaadno oo qadiyaddii innagoo doonaynaa inaynu ka midho dhalinno isla markaa go'aamadii shacab masiiriga ahaa ee ummaddan gaadhay la bislaynayo dariiq kasta oo ay ku hirgeli karto inaynu samayno oo aynu la nimaadnaa loo baahan yahay waxaa kale oo aan laba kelmadood jeclaa inaan ka idhaahdo DB World oo aad loo soo hadal qaaday iminka intii ay socotay falanqaynta ama dooda marxaladda dalku shirkadda horta waa shirkad international ah oo caalami ah anigu mudanayaashii heshiiskooda markii la keenay diidanaa baan ka mid ahaa laakiin kol haddii go'aankaasi go'aan gole noqday oo la ansixiyey heshiiska waxaan ayidsanahay in la dhaqan geliyo oo aan laga hor imanin qaabkii heshiisku ahaa iyo sidii uu u dhacay wax waa la iska weydiin karaa laakiin in la dhaleeceeyo ama wax laga sheego ma habboona waayo dee go'aan gole ayaynu ku ansixinay oo lagu meel mariyey waxaanan ummadda u sheegayaa oon u bayaaminayaa DB World waxay maamushaa maaha kastamadeenna maaha waa dekedda iyo serviceka ay adeegga dadka ay u qabanayso maraakiibta iyo alaabta laga rarayo ama laga soo dejinayo dekedda fiiga laga qaadi jiray miisaaniyadihii waxaan xasuustaa 2012 iyo 13 iyo intii ka horreysayba way isgoosan jirtay waxaa la odhan jiray 2 bilyan oo Somaliland shilin ah ayaa ka soo baxay dekedda kharashkiina haddana waxaa la odhan jiray kharashkeedina wuxuu noqday 2 bilyan way isgoosatay waxba kamay soo geli jirin qaranka miisaaniyadda qarankana dekeddu waxba may contribute garan jirin dadka laba iskaga qaldan markaa waa cashuurta dadka alaabta la soo degaya ama ka raraya laga qaaday customka Somaliland lagu qaaday wasaaradda maaliyadda qaada iyo adeegga ama serviceka ay DB World iyo dekeddu qabanayso waa laba aad u kala duwan weey cashuurta customku qabto ee wasaaradda maaliyadda qabataa waa sideedii sanad walba wax ku soo kordha mooyaan waxba kama dhacaan adeegga DB World ay ka qabato dekeddu markii uu kordhayna maraakiib intii hore ka badan baa timid customkuna intii hore wax ka badan ayaa lagu cashuuraa dakhligiisuna customka intii hore uu ka batay oo uu ka koray marka yaan loo fahmin dadkana aan loogu sheegin dekeddii DB World baa la wareegtay oo lacagta ay ka qabato ayay dekeddeenii noogu samaynaysaa lacagta laga qabtaa lacag deked samaynaysa maaha lacag deked samaynaysa maaha 435 milyan oo dollar ayay ku dhawaaqday inay DB World gelinayso dekedda ayay dekedda ku dhawaaqday inay gelinayso waxba ma sha Allah ah gurina waa wixii heshiiska ku qoraa aadan saxiisan gacanta u taagtay waxa markaa u baahanahay inagoo ka duulayna wixii naga soo gali jiray ogeyn dekedda inaynu qiimayno oo aynaan ku qaylin ama aynaan oranin heshiiskaas uu jaban yahay heshiisku waa kii aynu ansixinay waxa ku qorana wuxuu ahaa miisaaniyadihii aynu ku ansixin jirnay 2 bilyan oo Somaliland shilin ah haddana kharashkeeda dekedda waxa la odhan jiray 2 bilyan baa ayadoo dib bay isu goosan jirtay DB World waa bilowday dekeddii inay wax ka qabato ama dhismaheedii qalab way keentay shaqaalaha way tababartay waxyaabo badan oo isbedelay way jiraan servicekii adeegii wax badan baa iska bedelo fududaaday marka customkii
iyo lacagtii Soomaaliland ka soo gali jirtayna wax ku kordhay ma waxba kama dhicin waa sideedii wasaaradda dakhliga wasaaradda maaliyadda Soomaaliland baa la qabataa haddaynu kula xisaabtamayno dakhliga guddiga dhaqaalaha golaha wakiilada uu joogaa iyaga laga rabaa inay soo kormeeraan oo wixii korona ama hoos u dhaca ee customka iyo adeegiisa ku yimid ay soo taabtaan intii ay DP maamulka dekedda haysay laakiin gacanta intii ay ku haysay maxaa isbedelay bay u baahanay inaan qiimeeyno adeegii dekedda iyo containerada iyo qalabkii ma isbedelay maraakiibtii iyo hawlahoodii iyo dekedda sidii loogu soo xidhi jiray iyo adeegii loo qabanayay ma isbedelay dekeddii ma socotaa 400 mitir ahayd oo gacanta ma lagu hayaa oo ma la soo arkay taynu u baahanahay inaan soo taabanaa gol ahaan waa taawi xildhibaanada gobolka saaxil ka soo baxayna tay wakiilkeena uga yihiin u baahanahay inay noo fasiraan oo ay inoo sheegaan waa taawi xildhibaanka loo daayo taana intaasaan kaga bixi lahaa waxaan u soo geli lahaa heshiiskan ugu dambeeyay maalintii daraad ahayd ka dhacay madaxtooyada Soomaaliland lagu saxaaday horta anagu gol ahaan ama mudanayaal ahaan ama anigu waa iska hadlo heshiis wax kasta lagu heshiiyo wanaaga oo Soomaaliland dhanka horumarka loogu kacayo waa soo dhaweynayna ma nihin anagu dad kuraastan golaha ujeedadoodu tahay inay sii fadhiyaan waa jecelay in doorashadii golaha wakiiladu dhacdo waa jecelay in doorashadii golaha deegaanku dhacdo waa jecelay in dimuqraadiyaddii iyo nidaamkii la aasaas gareeyay Soomaaliland ay ku faani jirtay